Videogan waxaan kaga hadlayaa empirical probability-ga. Marka empirical probability way ka duwan tahay classical probability. Classical probability waxay ku dhisan tahay equally likely event. Marka event-yaashu waxa weeyaan equal probability ayay qabaan. Marka empirical probability laakiin markii la joogo equally likely ma qabto. waxa weeyaan waxa la fiirinayaa frequency-ga. Marka probability-ga haddii ay experiment-gu ay tahay ama probability-du hadday tahay empirical probability, marka formula-tan ayaa la raacayaa oo ah frequency for the class loo qaybiyey total frequency. waa in simple terms waxaa loo qori karaa sida tan. waxaa loo qori karaa f all over n. f all over n. f waxaa loo soo gaabinaya frequency-ga event-ga aad raadinaysid. n-na waa sample space-kii ama total number-kii weeyaan. marka hadda for example haddii survey yar la sameeyo, for example surveygan mathalan dadka jecel inay drive gareeyaan gawaarida, for example kasoo qaad driving, dadka jecel driving waxaa weeyaan 41 qof, 41 qof driving. d driving aan usoo gabi. f haddaan usoo gaabino flying-na ay tahay 6 qof. dadka jecel inay raacaan tareenka ay yihiin 3 qof. marka annaga dadka total dadka aan la hadlaynana aan usoo gaabino n total numberka dadka aan survey-ga ka qaadaynana ay yihiin 50. marka waad aragtaa 50gan qof haddii la fiiriyo, driving waxaa jecel 41 qof, flying-na waxaa jecel 6 qof, training-ka ama tareenka in la isticmaalna waxaa jecel 3 qof. marka waad aragtaa hadda probability-gu way kala duwanaanaysaa. hadda markaan raadinayno probability qofku inuu jecel yahay driving iyo probability-ga qofku inuu jecel yahay flying isku mid ma aha because probability-ga kan waxaa loo yaqaanaa empirical probability. marka waxa weeyaan way ka duwan tahay classical probability. classical probability waxa weeyaan event-yaashu isku probability weeyaan, waa wada likely inay dhacaan. marka hadda laakiin tan likely inay wada dhacaan ma noqon karto. oo hadda 50kan qof, hadda probability-ga qofku inuu jecel yahay driving haddii hadda 50 qof haddii qof laga select gareeyo, probability inuu jecel yahay driving aad bay u badan tahay because 41 out of 50 waxa weeyaan driving ayay jecel yihiin. probability-ga inuu tareen raacana qofkaas aad bay u yar tahay, ama probability qofka inuu train jecel yahay aad bay u yar tahay, waayo waxa weeyaan waa iska 3 out of 50. marka empirical probability markii la joogo waxaan fiirinaynaa frequency-ga event-ga. sida hadda frequency-ga driving waxaa weeyaan 41, kadibna waxaan u qaybinaynaa total numberka sample space-ka oo n ah. frequency-ga event-ga ayaan raadinaynaa, kadibna waxaan u qaybinaynaa total numberka. markaas sidaas ayaad u ogaanaysiin empirical probability.